sawirro dhanka satellite-ka lagu qaaday ayaa waxa ay muujinayaan in waddanka Sacuudiga uu leeyahay saldhig military oo u muuqda mid lagu farsameeyo gantaalada balaastikada oo qaadi kara madaxyo nukliyeera. jiritaanka barnaamij noocan oo kale ayaa waxaa sii xaqiijiyay hadallo uu hore u sheegay dhaxal sugaha waddankaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, kuwaasoo ahaa in boqortooyadu aanay ka labalabaynaynin inay samaysato hub nukliyeera waa haddii dalka Iiraan uu tallaabadaas oo kale ku dhaqaaqo. gantaalada balaastikadu waxa ay qaadi karaan madaxyo nukliyeera kuwaasoo gaadhi kara meelo boqortooyada kumanaan kiiloomitir ka fog. saraakiil ku kala sugan magaalada Riyaad iyo safaaradda waddanka Sacuudiga ee Washington ayaan ka jawaabin codsi arrintan wax laga weydiin lahaa. inuu Sacuudigu tallaabo noocan oo kale ah ku dhaqaaqo waxa ay sii xumayn kartaa xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo Sacuudiga. inuu Sacuudigu tallaabo noocan oo kale ah ku dhaqaaqo ayaa waxa ay sii xumayn kartaa xiriirka ka dhaxeeya wadamada Mareykanka iyo Sacuudiga, kuwaasoo muddo xulafo ku ahaa amniga xilli xiriirkooda uu wax u dhimay dilkii loo geystay wariyihii wargeyska Washington Post ka shaqayn jiray ee Jamaal Khashoggi. sawirro dhanka satellite-ka lagu qaaday ayaa waxaa markii ugu horeysay baahiyay wargeyska The Washington Post meel u dhow magaalada Dawaani oo 230 kiiloomitir ka xigta magaalada caasimadda ah ee Riyaad. majallad ka hadasha arrimaha gaashaandhigga ayaa iyaduna wax ka qortay arrimaha ku geydaaman saldhiggan, waxaana ay sheegtay in laga soo iibiyay waddankaasi Shiinaha. sawirrada oo markii ugu horeysay la arkay ayaa muujinaya dhismayaal u eg meel gantaalada lagu farsameeyo. dowladaha Sacuudiga iyo Shiinuhu qayb kama aha heshiis xadidaya gantaalaha, heshiiskaasoo 30 sano jira. dowladaha Sacuudiga, Israa'iil iyo Mareykanka ayaa cambaarayn jiray gantaalaha balaastikada ee waddanka Iiraan iyaga oo u arka mid khatar ku ah gobolka. Saciid Axmed Tamreyse, wararka telefishanka caalamiga ah Star.